kusoo dhawow. Markaad Apple ID sameynaysaan marka ugu horeysa waxaad sameynaysaan email waa inaad leedihiin ama Gmail waa inaad leedihiin. waxaad galaysaan mailka kadibna waxaad dooranaysaan Google-ka si aad gmail.com u sameysataan. haddii aad email already leedahay waa inaad halkan gashataa oo emailkaaga ku qorataa. haddii aanad lahayn create account meesha leh waa inaad taabataa. kadib magacaagaad ku qoranaysaa hoostana magaca waxaad ku qoranaysaa aabaha ama magaca awowga midka doontid. next ayaad leedahay. markaad next tiraahdo wuxuu kuu soo saarayaa information-kaaga kaasoo ah dhalashadaada bishii aad dhalatay ayaad marka koobaad dooranaysaa. bisha markaad dooratid kadib waxaad marka labaad dooranaysaa maalinkaad dooranaysaa kadibna sanadkii aad dhalatay ayaad ku qoraysaa. markaad saa ugu qortid kadibna jinsigaaga ayaad dooranaysaa male female midka tahay ayaad dooranaysaa kadib next ayaad taabanaysaa. markaad next taabato marka wuxuu kuu soo saarayaa magacaaga isagoo eegaya emailada aad ka dhigan kartid midka doonto. haddaanad ka helin kuwa uu kuu soo saaray create my own baad dhahaysaa magaca doontaad ku qoranaysaa. kadib anuu imka mid baan iska doortay. kadib password-kaaga ayuu kuu soo qorayaa. waa inaad hubisaan marka password-kaaga inuu yahay mid aad markasta xasuusatid. haddii aad rabtid inaad aragtid show password meesha la kaliyata ayaad taabanaysaa si uu kuu tuso. haddaad rabtid inaad qarsatidna meesha calaamad show password-iga leh ayuunbaad ayar ka taabanaysaa. kadib ayar password aad hubtid aanad iloobaynin markaad ku qoratid next ayaad leedahay. next markaad tiraahdid wuxuu ku weydiinayaa lambarkaaga wuxuu ku anfacayaa waxa weeyaan haddii aad ilowdid password-kaaga. haddaad password-kaaga ilowdid si dhib yara ayaad ku soo saaran kartaa adoo isticmaalaya lambarkaaga. okay therefore mobile-kan imka aan ku sameynayo lambarkiisa ayaan isticmaalayaa si ruuxan aan u sameynayo uun iloobin emailkiisa. lambarkii baan ku qorayaa. markaad lambarka ku qortid next ayaad leedahay. haddaad doontidna skip baad iska dhihi kartaa laakiin skip wuxuu ku dhibayaa haddii uu password-ku ka halaabo ama aad ilowdid in aanad ugu noqon karin. kadib next baad leedahay. kadib wuxuu ku soo saarayaa contract-gii agree ayaad leedahay waad dhaafaysaa markaas u dhaaftid uu ka wada baxaya. wuxuu ku soo saarayaa gmail-kaagii in aad rabtid inaad la xiriirisid contactyadaada email-kaaga oo dhan yes baad leedahay. kadib korka safety ay ku qoran tahay ayaad taabanaysaa. account-kaagii imka saas kuugu samaysmay. inbox-gii imka weeyaan waxaan ku jirno account-kaagii inbox-giisa weeyaan waxaan hadda ku jirno. marka aad saa u samaysaan email-kaaga xaggan uu kusoo galaya. then waka email-kaaga xaggan aad ka heli kartaa magaciisa iyo buuxa. markaas aad u taabatid email-kaagii ayuu kuu soo qorayaa. then adoo email-kan isticmaalaya ayaa waxaad sameynaysaa setting-gigaad galaysaa. setting-giga markaad gashid ayaa waxaad galaysaa meesha ugu koreysa ee Apple ID-ga. haddii uu Apple ID hore kuugu jiray make sure waa inaad hubisaan in aad ka saartaan. okay sign out intaad tirahdaan ayaad password-kiisii hore ku qoraysaan. kadib waxaad leedahay ka wada saar. okay haddaad rabtid wax data inuu aad ka reebatid waad ka reebani kartaa. haddii kalena sign out baad leedahay si aad Apple ID-gii hore aad iskaga saartid ood ku cusub u samaysatid oo adigu leedahay.
then waka Apple ID gu ka baxay then waxaad leedahay ayar waxaad taabanaysaa sign in to your iPhone meesha ku qoran tahay ayaa taabanaysaa kadib waxaad samaynaysaa xagan I don't have an Apple ID meesha leh hoosta ayaa taabanaysaa haddii aad already leedahay korka unbaad ku qoranaysaa emailkaagii kadib passwordku ku weydiin passwordkaad gashanaysaa haddaad lahayd I don't have baad leedahay kadib wuxuu kusoo saarayaa Apple ID create Apple ID create ka taabanaysaa kadib waxaad samaynaysaa ayar halkan intaad magacaaga ku qoranaysaa okay magacaaga markaad ku qortid iyo magaca aabaha ama magaca awowga baad ku qoraysaa markaad labada qoratid kadib waxaad samaynaysaa birth date-kaagii ama dhalashadaadii ayaad information-kiisa ku qoraysaa dhalashadaadii maalinkii bishii iyo sanadkii baad ku kala qoraysaa kadib korka oo next ku qoran tahay ayaad taabanaysaa kadib emailkaagii baad ayaad halkan ku qoraysaa markaad next taabatid emailkii buu ku weydiinayaa emailkaaga waa inaad marka ku qorataa sidii uu ahaa okay so emailka aan hadda ku qorayo waa emailkan sida uu yahay ayaad halka ugu qoraysaa hebel@gmail.com ayaad ku qoraysaa @gmail.com ayaad ku qoraysaa kadib waxaad leedahay next ayaad taabanaysaa next markaad taabatid passwordkaagii ayuu ku weydiinayaa okay passwordkaagii ayuu ku weydiinayaa then passwordkan waa inaad hubisaa inuu yahay mid aad xasuusani kartid oonad iloobaynin okay make sure inuu yahay passwordkaagu mid aanad iloobayn mar kasta waa inuu markaa passwordkaagu ka koobnaada capital letter lambaro iyo magacaan isku dhex jira waa inuu ka koobnaadaa kadib next ayaad leedahay lambarkaagii ayaad ku qoranaysaa marka okay lambarkaaga markaad ku qorato marka kan wuxuu kaa caawinayaa in confirmation code lagu soo diri oo email message lagu soo diro confirmation code-kaasoo kaa caawinaya inaad si process-kan sii dhaaftid waa ka imika hadda verification code ama confirmation code ayuu kuu soo dirayaa confirmation code-ka waa kaa automatically wuu ii soo galay kadib waxaad samaynaysaa ayar next baad taabanaysaa then agreementigii ama conditionii agreementigii uu Apple ID-gu lahaa ayaad agree leedahay kadib markaa process kale ayuu ku galayaa imika you cannot create an account buu ku yidhi sababtoo ah passwordkii aan hadda ku qoray iyo waxaa isku eekaaday magacaan ku sameeyey iyo passwordkayga hadday isku mid noqdaan waxaa lagu dhahayaa maadaama la qiyaasi karayo passwordkaaga waa inaad hubisaa in magaca aad ku qoratay Apple ID-gaaga iyo passwordkaagu inaynan isku mid ahayn waa inaad hubisaa ayuu ku leeyahay markaa dib baan uga noqonaynaa passwordkii wixii dhammaan ku wada qoraynaa kadib next ayaan leenahay password cusub ayaan ku qoranaa kaasoonan la xidhiidhin lambarka aan ku samaysanay iyo email iyo magaca aan ku samaysanay aanan la xidhiidhin ayaad ku qoranaysaa kadib marka next ayaad leedahay kadibna waxaad lambarkaagii baad ku qoranaysaa next baad dhahaysaa si confirmation code-kii ama verification code-kii uu kuugu soo diro xoogaagu yara raagayaa laakiin wuu kuu soo diray marka then confirmation code-ka waa ka ii soo diray agreementigii sidii aan idiin sheegay uun agree baad dhahaysaan agree baad taabanaysaan agree markaad taabataan then next ayuu u dhaqaaqayaa
then signing into your iCloud buu leeyahay. Hadda wuxuu gali rabaa yani uu signing garanayaa oo uu ku furi rabaa. then hadda waxaad sameynaysaan emailkiini intaad gashaan ayaa verification code ayuu kugu soo dirayaa sidii mobilkaaga uu verification ugu soo diray ayuu emailkaagana kugu soo dirayaa. then waa inaad lambarka lagugu soo diray waa inaad xifdidaa si aad ayar u taabatid ood u verify garaysid inaad emailka adigu leedahay. kadib lambarkii lagugu soo diray emailkaaga ayaad halkan ku qoraysaan. emailka lambarka lagugu soo diray imka aniga tusaale ahaan 6696 baa la soo diray. then halkaasaan ku qorayaa. waa inaad hubisaana inuu verification code-ku uu yahay sax. then 19 kadib saasuu iigu soo baxay. imika waan samaystay account-kii ama Apple ID-ga waan sameeyey. laakiin si aad u isticmaashaan waa in aad information code dhan aad hubisaan inaad wada geliseen. okay taana waxaad ku hubini kartaan waa inaad ayar intaad waa inaad halkan intaad ka baxdaan xaggan intaad ka baxdaan waa inaad tagtaan waa inaad intaad xaggan ka baxdaan aad gashaan App Store. okay App Store-ka markaad saa u gashaan waxaad sameynaysaan marka ugu horeysaba sign in ayaad dhahaysaan. okay sign in ayaad dhahaysaan calaamadda yar baad taabanaysaan kor ku qoran. kadib halkan Apple ID ay ku qoran tahay ayaad emailkaaga iyo buuxa ku qoraysaan. emailkaaga iyo buuxaad ku qoraysaan. kadib markaad emailkaaga ku qortaan passwordkaagina waad ku qoraysaan. kadibna waxaad leedihiin sign in. markaasaad tirahdaan wuxuu ku soo qorayaa this app has not been used in App Store. waa inaad review garaysaan. review markii lagu leeyahay marka waa inaad informationkii oo dhan aad hubisaan inaad ku wada qorteen weeyaan wax kale maaha. okay kadib marka waxaad sameynaysaan review si aad u samaysaan review baad taabanaysaan. reviewga markaad taabataan ayaa waxaad sameynaysaan ayar wuxuu ku soo saaray informationkaagii oo dhan imika tusaale ahaan halkan dalka ay ku qoran tahay waa inaad aad bedelataan oo dalka aad joogtaan haddii uu ku jiro waa inaad dalka aad joogtaan ku qorataan. haddii uunan ku jirinna dalkaad doontaan baad iska dooran kartaan dhib ma laha. ani imika tusaale ahaan waxaan dooranayaa United States. okay markaan doorto agreementiga ayaa meesha yar agreementiga ayaan taabanayaa. wax aan sameynaya maaha waan taabanayaa kadib next waan leeyahay. hadda wuxuu ku soo saarayaa marka informationku waa inaad buuxisaan. okay wadada aad ku nooshihiin magaalada aad ku nooshihiin gobolka aad ku nooshihiin waxaasoo kale. marka wax dib ma laha waxaad ka walwalaysaan maaha waxaad doontaan baad iskaga qoran kartaan wax dib loo check garaynaya maaha. imika tusaale ahaan anigu MSK Street baan iskaga qoray. magaaladana New York baan iskaga qoray. state-kana isla New York baan iyadana taabanayaa. New York ayaan taabanayaa. New York markaad taabatid done ayaad leedahay. kadib marka waxaad ku qoraysaan streetka
I mean postal numberka anuu imika waxaan ku qoray 1001 lambarkana lambarkaad dad ku qoraysan wax muhiim saasa maaha haddii aad laakiin dalka Mareykanka waxa joogtaan aad iyo aad buu muhiim kugu yahay anu maadaama Ethiopia joogo waa lambar Ethiopian aynan ku jirin meesha ayaan ayar lambarkan iskaga qoray kadib next ayaan idhi then hadda wuxuu ku soo qoranayaa Apple ID complete hadda Apple ID gaagi saas kugu sameysmay wuuna ku dhamaaday weeyaan okay ayaa taabanaysa ama continue ayaa taabanaysa continue marka aad u taabatid marka Apple ID gaagi ayuu ku soo saarayaa Apple ID gaagi ayuu ku soo saarayaa si aad u hubisaan marka inuu Apple ID gaagu saxsan yahay waxaad ayar sameeynaysan intaad search-da gashaan ayaad application ku dayaysaan inaad download gareysaan tusaalahaan imikaanu Facebook ayaan ku dayay Facebook Messenger ayaan ku dayay ayar intaad Facebook markaad ku qortaan Messenger ku soo saar Messengerka get ayaa taabanaysa kadib wuxuu ku leeyahay ma emailkan maada iskale haabaad leedahay kadib passwordkaagii aad u samaysatay Apple ID-ga passwordkaagii aad u samaysatay Apple ID-ga ayaad ku qoranaysaa sign in ayaad leedahay sign in ayaad leedahay markaad sign in tiraahdina waa ka saas ugu dhamaaday hadda wuxuu bilaabayaa in uu install gareeyo isla application-kii aad taabatay aad rabtay inaad install gareyso then wuxuu ku weydiinayaa in miyaad rabtaa in 15 daqiiqo markay gaadhoba in passwordka lagu weydiiyo mise waxaad rabtaa in aad markasta lagu weydiiyo 15 daqiiqo ka taabanaysa kadib ayar waxaad leedahay get ama download ayaad leedahay Messenger-ka xaga imka calaamada yar soo baxday aad arkaysaan waa uu download gareynaya weeyaan hadaad ka baxdaan oo meesha application-ada gashaan waxaad arkaysaan isagiyo Apple ID-gi Messenger-kii uu download gareynaya ama waiting uu leeyahay kaasoo ku cadeynaysa inuu already download gareysmayo saas ayayna sida dhibta yar leh ayaa lagu sameyn karaa Apple ID-ga aad iyo aad ayaad u mahadsantiin wax su'aalaad dadaysan comment hubiya inaad like gareysaan subscribe gareysaan share gareysaan YouTube-kayga waad mahadsantihiin